الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم إمام الحنفاء وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه الأخيار وعلى التابعين معهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، waxaynu ka soo hadalnay khudbadii hore asbaabu thabaat cala diin, waxyaabaha inaga saacidi kara diinteena islaamka inaynu ku adkaano ee duulimaadka lagu yahay. khudbadeennani waxay baraarujinayaan inuu qofka muslimka ahi dareensanaado casrigan aynu marayno qaraabada diinta. alqurba fi ddiin, qurbada waxaa looga jeedaa cidlowga qofka islaamkiisa ku dhaqmaya diinta si saxa u haystaa. waxa uu dareemayaa weheelyaraan iyo cidlo iyo inuu qaloonayo. neefka xoolaha ay marka xoolaha aanu garanayn ku dhex darmaabaa la yidhaha wuu qalooday oo cidloonaya. lakina hadihi alqurba qurbatun gayru saabiqa. berigii hore siduu islaamku qariib u ahaa tan maanta way ka duwanta. waa qurbatun fii ahli. islaamkiibaa ehelkiisii ku abtirsanayay qariib ku ah. wax aada u la yaab badan weeye. dhowr qodob ayaynu baraarujin lahayn oo ta u horeysaa waxa weeyaan axaadiidta ku soo arooray baabka ah ee waxaynu maanta arkayna sii sheegay iyo waxa laga faa'iidayo. qodobka labaadna waxa weeye madaahir alqurba, qurbadani wax jira miyay tahay hadda. iyo qodobka saddexaad oo ah sifaat alghurabaa, dadka diinta qariibka ku ah ku cidloonaya ku dhaqanka diinta ay ku dhaqmayaan ku kaliyaystay tilmaamaha ay leeyihiin. axaadiidtaas saddex xadiid baynu soo akhrinay, waynu ku celin doonaa. waa saxiix. nebigu calayhi salaatu wasalaam ummaddu la hadloo waxa yihi waxaa iman doonaa wakti qofka diintiisa haystee ku dhaqmaya uu ka dhigan yahay qof dhimbiil dabahaya. intee lagu sii hayn karaa qofkaas? waa arrin adag weeye. tusaale uu bixinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu tuuraabu u dhowaanaya iyo inuu ku noolaado ku dhinto maca kulaylkeeda. xadiidka kale saxiixa ee nebigu wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam, ibnu mascuud baa warinaya, waxaa idinka dambeeya ayaam zamaanu sabr, waktigii sabirku muhiimka u ahaa ee qofka diintiisa haysta maalmaha adag ee diinta la ysku nacayo iyo ku dhaqankeeda wuxuu la mid yahay xagga ajriga 50 asxaabtiinan ka mid ah, 50 shahiiday oo asxaabtiina ka mid ah. dee 50 asxaabi oo shahiiday ajriga ilaahay agtiisa ku yeelan karaan ayuu casrigan adag qofka diintiisa ku adag cidduu doonayaba ha ahaadee ajriga in leeg buu helayaa buu nebigu u bushaareeyey calayhi salaatu wasalaam. xadiidka saxiix, xadiid kale isaguna waa saxiix weeye, sahlo bnu sacd baa warinaya. nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, waa mucjisaadkii nebiga ka mid. islaamku wuxuu bilaabmay isagoo qariiba, qariibnimadaasaanu ku noqonayaa dadka islaamka qariibka ku ah iska haysta ee aan ka tegin baa wanaag leh iyo janno. kuwaasuu nebigu u yabohay calayhi salaatu wasalaam. dadka qurabadaa markii la weydiiyeyna wuxuu uhi waa kuwa naftoodana hagaajinaya dadkana hagaajinaya. faa'iidooyinka axaadiidta waxaa ka mid a kow, nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa cad. waa xadiidku min dalaa'il nubuwa ayuu ka mid yahay nebinimadiisa waxyaabaha ka markhaatiga ah. wuxuu sii sheegay baynu aragnay aynu indhaha ku haynaa. adduunkaa dhane maanta aynu joogno waxaa 200 oo dowladood meelahaasaa ka dhisan baa la yidhaahdaa. 250 waa islaam. wax calan shareeco in laysku xukumo u taagan xataa dowladaha islaamkii ma jiro. arrin aada u cajiiba weeye. waa qurbadu nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam. waxaa labaadoo axaadiidani ay daliilo yihiin mar walba adduunkan aynu ku noolahay dadka inta faraha badani diin la-aan bay ku sugan yihiin. inta diinta haysatana intooda badani waa caasi. wax soo jireen ahaa weeye qur-aankuna ina barayo. ilaahay baa wuxu uhi wain tudic akara man fi lardi yudiluuka can sabiili illaah. dadka intooda badan xaggay u badan yihin haddaad raacdo diintunbaad seegi. dadku xaggaasay u badan yihiin iyo waxaasaa caalamiyaha iyo beesha caalamka iyo waxaa ku dawakhi. waa meel badaha la dhex dhumbaday ka mid yihiin iyo naaraha la galo dacagaa laga gubto. caalamkan aynu maanta ku noolah wax yar baa ka dhiman baa la yidhaahdaa 8 bilyan ama 8,000 oo milyan. macnaha waa 7.8
laba boqol baa ka dhiman rubuc baa muslimiina ugu dhowaan macnaha waxaan 2 bilyan gaadhay 3/4 ama 4 meelood marka laga dhigo 3 waa gaalo inta islaamka soo hadhay firqado badani islaamkii way ku abtirsanayaan laakiin way halaabeen sida shiicada iyo wixii la mid ah inta soo hadhayna intee caasiya waxa qilla qaliila bay noqonayaan tira aad u yar inta diintooda ku dhaqmaysa ka run sheegaysa magaaladeena imika aynu joogno marka salaada ka dareertaan dib u eegama marka jumcada la soo galayo ragga dhex jooga eeg waxa la isticmaalaa meesha waxa ku nool aqaliyad muslima inta masaajidada galaysa ilaahay caabudaysiya inta aan kaba warhaynin mid qaylaya mid shaqaysanaya mid qaylinaya war mala qilla qaliila mala dal aqaliyadiisu islaamtay baad joogtaa baad ka fikiraysa marka halkaas waxa kaaga soo baxaya istintaaj waxa soo dhan markaad u geysay yusaawi waxay la mid tahay inta diinta ku dhaqmaysa waa in aad u yar arinta saddexaad xadiidku inoo muujinaya waxa weey ciidamul ajri ma ciidamil balaa abaalmarinta u weyn iyo darajada la gaaro ilaahay agtiisa balaayada u weyn bay ka agdhowday darajooyinka waaweyn dadaalaan laguma gaaro marka qofka islaamkiisa ku adag ee qariibka ku ah ee ka run sheegaya ka daacada ah abaalmarin weyn buu ilaahay agtiisa ku leeyahay sida uu nabigu ba xadiis ugu shaareynay calayhi salaatu wassalaam arinta afraadna waxa weeye ibtilaagan iyo imtixaankan iyo dhimbiilahan maxaa dadka loo marinaya waa kala shaandhayn iskaga wada abtirsanayaan dadku keebaa mu'mina keebaa munaafiqa keebaa dadaalaya keebaa diinta ka dhabahayn taasuu ilaahay kala shaandhaynaya subxaanahu wa tacaala intaa markaynu soo dhaafno madaahirul qurba in qariibnimadani jirto maxaa markhaati ka ah waxa markhaati ka meelo badan markaynu eegnaabeynu arkaynaa mid waynu soo sheegnay miiska ma inoo saaran yahay kitaabkii ilaahay ugu talagalay in lagu dhaqmo iyo sunnadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ee fasiraysa hadday tahay dowlad hadday tahay shacab hadday tahay qabiilo midna ma yaalo wax kale ayaa ummadda nidaam iyo xeer ay ku dhaqmaan u ah idan markaynu dadka nidhaahno war kitaabkii ilaahay uu inoo dhex yaallaa fiqigii islaamiga ee fasirayay iyo aqwaashii culimada iyo axkaamtii baa taalla dadka waxaa laga yaabaa ka ugu dhow inuu ku way fiican tahay laakiin hadda casrigan aynu joogno looma bisla macnaheedu waxa weeyaan ma aqbali karayno ma suuroobayso ayuu qofkii isla soo taagayaa waa midda labaad ee muuqanaysa waxa weeye qurbada la xidhiidha fil akhlaaqi wasuluuk dhinaca dhaqanka dadka dhaqankoodii muxuu noqday maxay xadaaradu haystaan maxay ilbaxnimo u haystaan akhlaaqiyaadkii islaamka noocyadii kala duwanaa ee shucab al-iimaan qaybaha iimaanka ee dhaqanka uu nabigu sharxayay wax badan baa lagugula yaabayaa oo la odhanayaa taamaanaan arki jirin ay naga jooji waa qurbo la xidhiidha iyaduna xagga caqiidada iyo mafaahiimta islaamka see loo fahmaya wax badan baa fahamkii saxiixa uu lunsan yahay waa qurbo la xidhiidha xagga taqaaliidka iyo caadaadka waa qurbo la xidhiidha xagga walaaga iyo baraaga dadka haddaad weydiisay yaa nacaba yaa se gacala midba waxbuu kuu sheegayaa islaamkuna alwalaa walbaraa qaybaha caqiidadu ku jira yaa shisheeya yaa sokeeya yaa walaalatiino isku abtirsanaysa islaamku iimaanku ka dhigay ummadaheena bal weydii qayb waxay ka odhan dee waa annagu intaanu isku reereebanay mid kale waxay ka odhan dee intaanu isku dalnahay ee aanu isku qowmiyadnahay waxaasaa lagu daldalayaa waa dadkii muslimiinta ahaa ee islaamku u abtirsanayay ayaa mafaahiimtaas kale waxaas oo dhan waxay muujinayaan markaynu soo ururinno qurbada uu nabigu sheegayay iyo la yaabka islaamka dadkiisii ay la yaabayaan markaan shisheeyaba la gaadhin inay tahay wax jira waxaynu u gudbi lahayn markaa inagoo ku soo dhowaanayna sifaadka iyo tilmaamaha ay leeyihiin qurabadu oo runtii sheegaysa inay raganimo iyo dadaal badan dadkaasi samaynayaan iyo adkaysin badan iyagoo isha ilaahay iska eegayo rabbi iska dhisaya mabda'ooda iyo diintooda xaqaana ku nool sifaadkooda waxaa ka mid ah atamasuku bisunna wa in raqiba canha annaas sidaa dardaarankii nabigay qaateenoo sunnaha ay ku adegiin alqur'aanu waalxadiid caduu calayha binnawaaji diinta qabsada buu nabigu lahaa gowska dambe ku haysta waxaa la isku dayay in afka lagu kala qaado laga hadliyo si aad u tufto taasee caan ku yihi waana midh aada u muhiima wax la iska sheegtana maaha camal weeye la taaban karayo oo la arkayo sifaadkooda waxaa ka mid a yuslixuuna anfusahum waannaasa aydan dadaal bay samaynayaan oo dadka tusaale ugu yihiin khayrka
waxa wanaagsanna dadka way u sheegeen iyaguna tusaalay ku yihiin marka xadiidka nabigu wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam yuslixuuna anfusahum dadkooda naftooda horta ugu horreynba hagaajiyaan ummaddana inta ka soo hadhay ayay u dadaalaanoo diinta ay ku saxaanoo ay hanuunka ku toosiyaanoo kaalintii nebiyada ay qaataan sifooyinkooda waxaa ka mid ah waynu soo kookoobaynaa annahum najow min fitnati alqunuudi walyas waxay ka badbaadeen fitnada ah in la quusto dad badan baa casrigan aynu ku nool iska quustay waar islaamkan wax soo noolaanaya iyo dowladiisu taagaysa midna ma jiree dadkeenna aan dhinac ka raacno taana way ka badbaadeen oo waxay og yihiin arrimaha inuu ilaahay gacanta ku hayo subxaanahu wa tacaala cisiga iyo sharafkana isagu uu siiyo ummadaha imtixaanna uu iska socdo waxay ka nabadgaleen min fitnati alcajalati wa qilati sabri inay degdegaan oo midhaha dadejistaan taana way ka nabadgaleen oo wixii ay hayeen ay tuuraan iyo dhimbiishaa uu nabigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam waxaanay leeyihin innaga wadiifad baa inoo taalla watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri xaqa inaynu ku dhaqanno dadkana gaadhsiino natiijadana ilaahay baa gacanta ku haya subxaanahu wa tacaala waxay ka nabadgaleen min fitnati shubuhaat fitnada in qallooc dadka ay diintu u gasho ama ay diin ka dhigtaan waxaan diin ahayn taasoo firqadaha iyo kooxaha ku badan waana tuu nebigu ka sii digaya sala allahu calayhi wasalam markuu lahaa ummaddani waxay u qaybsamaysaa 73 qaybood qolunba xaqa ku suganoo waa kuwa nebi maxamed iyo asxaabta waddadoodii haya alkitaabu wasunna sunnaha rasuulka iyo qur-aanka uu sharxayo dadka haysta manhajkaas booye inta kale fitnatu shubuhaat baa ku dhacay shubha madmadow baa diintii ka galao waxay u qaateen waxaan diin ahayn bay diin moodeen markaasay biyihii saafiga ahana ka baydheen xunbana ku dhegeen casrigana waa taynu arkayna waxa badan ee gaaladu falsafada ah ee mulxidnimada iyo diin la-aanta ah ee khuraafaadka ah ee dadka lagu baahinayo loo xayeysiinayo xoolaha lagu bixinayo waxaa looga jeedaa taa shubuhaad in ummadda lagu furo way ka nabadgaleen waxay ka nabadgaleen fislada khatarta badan casrigana loo yaqaano fitnatu shahawaat dadka oo rabitaankoodu hogaamiyo oo qoloba meel laga helo dhallinyarada meel baa laga helayaa mutacalimiinta culimada madaxda qoloba meel loogu hagaagaabay leeyahay marka shahwadooda la istaarayo ee furaha shahwada lagu istaarayo shahwada Soomaalidu wax kale u yaqaan laakiin waa rabitaanka qofku oo wixii uu doonayo jecel yahay daba cararo kaasa shahwa la yiraahdo idan taana nabigu ka digay sallallahu alayhi wasallam xadiidkii saxiixa ahaa oo waxa uu leeyahay ummadan anigu gama cabsanayo in faqri laayo iyo gaajo laakiin waxaan idinka cabsanayaa in bahasha adduunyada la idin baahiyo oo la idin badiyo kadibna daba carartaan oo ku tartantaan kadibna xoolahaas idin halaagaan iyo adduunka iyo waxa danaynaysaa sidii reer banu Israa'iil iyo ummadihii idinka horeeyay oo maalkaasi u halaagay marka waxa dhici doona dadka hormuudka ummadda waa inay diintooda u seegaan iyo inay ku dhaqmaan iyo mabdooda inay ka run sheegaan intuu qofku mansab doonayo iyo madaxnimo mid kale maal buu doonayaa mid kale magac buu doonayaa manaaficda kala duwan intay u wardayaan bay ka siibanayaan taa uu nabigu tilmaamay diinta sida dhimbiisho kala ah markaas aad arkaysaa hebel shalay iyo maanta hebelkani shalay nasiib ahaa maanta nasiib uu yahay wadadii waxba ka duwa waa la helay sida uu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha sii fashilinayana waxa kamid ah maanta waxba la duubaa oo la record gareeyaa qofka hadalkiisii 5 sano ka hor 10 sano ka hor mawaaqiftiisii wixii marka la isa soo dhigo 2 shakhsiyadood ama 3 shakhsiyadood ama 4 shakhsiyadood ayuu kala noqonayaa oo kala nooc taana waxa keenaya fitankan uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo shahawaadka u badan ayaa maalin bay steerinkiisa dhan u leexinaya wa na'uudu billahi min dhalik wuxuu nabigu ku xusay calayhi salaatu wasalaam xadiid kale oo saxiix ah oo musnad imaam ahmed ku sugan min xadiid abi barza wuxuu nabigu inama akhsha calaykum ash-shahawaat allati fi butunikum wa furujikum ana waxaan idinka cabsanayaa hamada iyo hunguriga ku sugan calooshiin iyo cawradiina qofku calooshu la ordaya wuxuu cuni lahaa ama dhaqan lahaa ama dhigan lahaa ama hamadiisa saariyaysa wa mudillatil fitan wa fi riwaaya wa mudillatil hawa iyo fitnooyinka wax luminaya wasi calaamadina ya rasuulku sallallahu alayhi wasallam salafuna salih dadkeeni wanaagsanaaye culimadii markay arkayeen duufaanadii waxa duulduulaya dadka aad bay uga digi jireen arribaha
imaamkii la odhan jiray Sufyaan athawri ayaa wuxuu lahaa istawsuu biahli sunnati khayraa fa innahum qurabaa dadka sunnada nebiga ku taagan calayhi salaatu wasalaam khayr isu dardaarma oo khayrka isku adkeeya oo wanaagga isku xejiya waa qurabaa buu leeyahy sidaa uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam sunnadii saxda ay cidda haysataa maanta waa lala yaabayaa hoos baa loo eegayaa waa la iska weydaaranayaa فضيل بن عياض عابد كي وينان يسقون وحول أهل السنة من عرف ما يدخل بطنه من حلال أهل السنة لقوا شيء يا وحوي قفك قرته عروشي سو حق يا حلالا مرهدو حاران عن نغضب الله السنة دي النبي هنون كيسيتونا ما هيو إذن وحقول يا بشارين ونبي قلت عليه الصلاة والسلام مر والبا أمضا إنان لقوا طائفة على الحق ضد حق كتاغا oo cidda soo weerartay iyo cidda weerarinaysa toona aanay waxba ka guraynin ilaa an yarith Allahu al-ardha wa man 'alayha iyo diinta mar walba cid jadiidinaysa oo ummadda u cusboonaysiinaysa oo waxa soo duufaana ka soo hari doona kuwaasaana qalabada iyo guusha ayay yeelan doonaan marka waxaynu ku soo ururinaynaa arrimaha aynu sheegayna mar haddaynu arkayno qofka raasamaalkiisu ama ummadda raasamaalkeedu iyo ciis iyo sharaf iyo gobonnimo waxa waa diinta وعقيدة صحراء marka dadku haday ku cidlaystaan iyo haday ku yaraadaan iyo hadii lagu goynayo wax laga tanaasuli kara ma aha hadaad iyada tuurtood ka tagto dalka iyo dadka iyo dunyada midna waxba kuma tarayo midna kaama badbaadinay ilaahay subhanahu wa ta'ala amaam Allah adduunka ilaahay ummadda uu ku fadeexadeynay intaan aakhiraba la gaarin maantana waynu arkaynaa caalamul islaam halka ay marayaan iyo sida loogu ciyaarayo iyo sida maatidoodii looga qaylisiinayo iyo sida muqaddasaadkoodii loo dominayo kullu dhalika waa maxay waa diintoodii oo qariib ku noqotay arrimo badan oo 100 sano ka hor aan la aqoon ba maanta caadi noqday lama aqoonin 100 sano ka hor in shariicada islaamka lagu dhaqmo wax laga wada hadlan ma ahayn mar labaad wax laga wada hadlan ma ahayn xuduudahan maanta yaala ummaddu way isu furnaayeen caalamul islaami oo tareenka Turkiga ka yimaadaan ma ka iman jiray oo bariga galbeed u socon jiray mar labaad wax la yaqaan ma ahayn jihaad la'aan iyo dadka inay gaaladuna muslimka ku jihaadaan muslimkuna iska fadhiyaan arrimaha soo dhami waa waxaynu arkayno oo hadii aanay dadka muslimiintii toosin oo aanay dib isugu tashanin oo aanay sixin tarbiyada ummadoodii iyo ubadkooda ka sii darayo ilaahay baynu ku baraynaa nabadgeliyo allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittibaa'a وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة